بسم الله السلام سمالبين سيتين صباح ونكسن قلب ونكسن وقت داوني سكين ونكسن اسكو سو نقد حساب بدن كسو دواad arkeentina maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay oo ciwaankeenu yahay trial balance muxuu yahay trial balance qaabkee loo diyaariyaa muxuu muhiim u yahay in la diyaariyo ayaan ku baranaynaa muuqaalkeenan maanta muuqaalka marka wuxuu la socdaa muuqaal ka horeeyay aan kaga soo hadalnay accounting marka xog la diyaarinayo tilaabooyinka la maro saddex tilaabo u horeysa aan kaga soo hadalnay taasoo aan dhahnay marka koowaad waa in dhacdada la xaqiijiyaa in ay tahay dhacdo lacag la xiriirto hadii la xaqiijiyo kadib in la diiwaan geliyo oo journalka lagu diiwaan geliyaa marka la diiwaan geliyo kadibna in oo ledgerka lagu guuriyo oo tii account sameeyaa intaas ayaa soo qaadanay intaas markay noo diyaarsan yihiin talaabada xigta waxaa waaye in aan diyaarno trial balance muxuu yahay horta trial balance-ga baranaynaa trial balance waa meesha laga arko dhammaan akoonada ledgerka ku qoran iyo balansiyadooda meesha laga arko ayaa la dhahaa trial balance waqti mucayan ah qaabkee loo diyaariyaa waxaa loo diyaariyaa trial balance yaa la qoraa kadib waxaa lagu xijinaa waqtiga la diyaariyay dhamaadka bisha dhamaadka sanadka saas lagu xijinaa kadibna form ayaa la sameynaa formkaasoo ah accounts debit iyo credit accounts awaa marnay kadibna debit aqoonay kadib credit qaabkaas u diyaarinay formka markaa diyaarisid iyo waqtiga aad sameysay iyo magaca trial balance oo ku diyaarsan yahay formkaas inta markuu ku diyaarsan tahay waxaan ku laabaneynaa ledgerka ku laabaneynaa trial balance wuxuu ku tiirsan yahay oo xogta ka soo qaatay macluumaadka ledgerka si buuxda ay ugu tiirsan yahay ledgerka waayo meeshaas wax ku qoran ay soo guurin doonaa oo ka sameyn doonaa waxaan tagaynaa ledgerka tagaynaa tii account dhammaan akoonada accounts meesha aan ku qornay formka accounts meesha aan ku qornay waxaa ku taxeynaa dhammaan akoonada ku taxeynaa dhammaan akoonada iska taxeynaa marka akoonada ledgerka ku qoran oo dhan aan ku taxeynaa ma iska taxeynaa marka waxaa dhaynaa hab loo kala horumariyaa jirto midka aragna ma iska soo qaadayna degdeg ma iska qorayna laakiin hab loo kala horumariyaa jirto waxaa u horumarinayna akoonada assetka kadib kulli abiilka ku xijinayna kadib ku egta ku xijinayna revenue hadii jirto waxaa ku sii xijinayna revenue iyo expenses saas ayaa u taxeynaa marka habkaas loo tixo waxaa la rabaa marka trial balance markuu ku diyaarsan yahay iyo akoonadiis inaad ka dhex arki kartid balance sheet iyo income statement inaad ka dhex arki kartid la rabaa akoonada marka saas nidaamkaas u diyaarinay kadib waxaa u baahanayna debit iyo credit akoon kaste waxaa soo guurinaya balancegiisa soo guurinaya waxaa ku laabanaya ledgerka ku laabanaya tusaale cash ugu horeeyo waxaa dhahaynaa ledgerka ku laabanayna tii account cashka debit balance-ga fiirinayna debit balance cash intaasoo wataa ledgerka ta ku qoranta oo soo guurinayna inta oo wata oo ledgerka u qoran oo soo guurinayna meesha debitka ugu qorayna dhammaan marka akoon kasta iyo balancegiisa oo soo guurinaysa debit midka u ahaa debit credit midka u ahaa credit si fudud marka aan kala xifdino akoonada iyo balansiyadooda dealer aan ku soo qaadayna dealer qofka iibiya soo ma ahayn dealer aan soo qaadan tusaale waa dividend iiga waa expenses eedan waa assets saddexdaas marka way israacayaan isku meel hal meel ka kordhaan hal meel way ka nusqaamaan dibida ka wada kordhaan saddexdooda creditna way ka nusqaamaan marka oo dhacdada la diiwaan gelinaa waay marka tii akoon laga muuqanaana debit balance yeeshtaan balancegood marka la kala jaro oo debit balance wixii soo har debit balance uu qormaaya marka trial balance la imaanana balance ay wataan dibida ay u qormaan waa saddexdaas waa dividend expense iyo asset oo maana saddexda kale el waxa la soo gaabiyo liability iyada waa equity arna waxa waa revenue waa saddexdooda ayaga cagsi ku yihiin ku kore ay cagsi ku yihiin saddex kore ay cagsi ku yihiin meesha ay ka kordhaan ay ka nusqaamaan meesha ay ka nusqaamaan way ka kordhaan si kala doo dhahno debit ay ka nusqaamaan creditna way ka kordhaan waa marka dhacdada la diiwaan gelinayo marka ledgerka lagu soo guurinayo tii akoonkoodana balance-ga credit balance ay yeeshtaan marka balance-gaas la soo guurinayo oo trial balance la keenana isla credit-ka loogu qoraa sidaas fudud ayaa ku qabanayna okay marka akoonada markii asaas aan usoo tixno balansiyada ay wateen wixii debit ah debit ah u siino wixii credit ah u siino bas intaas ma ku ekeenayna maya intaas ma ku ekeenayna waxaa nagala rabaa inaad total sameyn oo isku soo tatarno oo dhammaan debit isku soo tatarno oo total debit ah qorno sidoo kalena credit waxa ku qorno dhan aan isku soo tatarno oo total credit ah qorno okay marka isku soo tatarno debit waxa ku qoran oo dhan oo aan dhahno debit intaas uu eg yahay credit aan isku soo tatarno dhan intaas uu eg yahay maxaa nagala rabaa in aan fiirno qiimeyn ama miisaan waxaa nagala rabaa in ay isla ekaadaan debit iyo credit in ay isla eg yihiin ayaa loo baahan yahay waa totalkooda isku darkooda hadday isla ekaan waayaan qalada jiro waa lagu noqonaa waa la soo saxaa tusaale hadday isla ekaan waayaan qaladka waxaa dhahayna intuu ka jiraa meel dhow inuu qalad ka jiraayo laga yaaba oo akoon
tusaale dhibid la garab inaa credit u diiwaan gelina balansigiis ku qornaa laga yaabaa qaladka meesha oo ka imaaday iyo isla ekaan la-aanta sidoo kale qaladka wuxuu ku dhici karaa marka aad soo guurinayna akoonada balansida markaa soo guurinayn inaa qalad oo number ah qaladna ay dhacdo ama nambare isdaba marino ama si kale oo fahmo ama ebri wax laga soo tago qaladkaas ay ku dhacaan waa hubinaynaa marka number kasta iyo tiradinkiisa ayaa u hubinaynaa waxaa kaloo dhici karta inay qaladka kasii hor ay dhaceen sababta marka waxa diiwaan gelinayn aan dhahno kaliya double intermal fiirinayo waa dhibid credit in isla ekaadaan wax saas dhan loo dhahayo oo la ilaalin lahaa ahayd in loo baahan in aad dib u noqono marka qalad haddoo dhaco oo isla ekaan waa trail balansigeena ilaa meesha oo ka dhacay ayaa laga soo saxaa oo trail balansiga waa la isla ekaysiinaa marka aan saas usoo baarno oo aan soo saxno oo total dhibidkeena total creditkeena ay isla ekaadaan oo balansiga noo soo baxo waxaa dhahaynaa okay waaye trail balansigeena wuu diyaarsan yahay wax kale ku laabasho dambe uma baahna ma dhahaynaa oo tallaabada ku xigta maan gelaynaa mise waxaa jiri karo qaladaha trail balansigeena ku jira ayada oo dhibidkeena creditkeena ay isla egyihiin waa su-aal muhiima haa way jiri karaa ayadoo total dhibidkeena total creditkeena ay isla ekaadeen oo balance noo soo baxay ayaa haddana waxaa jiri karo qaladaad ayaa ku jiri karaa trail balansigeena okay qaladaadkaas noocay noqon karaan dhibid credit ay isla egyihiin waayo dhibid credit wuxuu ahaa wax dhan oo wax lagu miisaamayo trail balancing miisaan waa miisaan ahaan loo adeegsadaa oo wixii qaladaada asla soo saaray dhinacan hadoo dhinaca la ekeen iyo wixii laga tagay iyo wixii dhan asigaa soo saaray miisaan oo ah miisaankii oo isla ekaaday haddana qaladaad noocyo kale oo jiri karo okay qaladaadka waxaa jiri karo tusaale in la isdib mariyay dhibid credit akoon laga kala reebay in la isdib mariyo akoon dhibid camal credit laga dhigay mid creditna dhibid laga dhigay ayadoo balansigooda oo isla egyahay marka tusaale ka soo qaadan akoon simple dhibid balance in laga dhigaa la rabay trail balansiga marka la joogo akoon payable credit haddii tusaale labadaas isdib mariyo oo midba meeshii lagu yaqaan meesha kale la geeyo balansiyadoodana ay isla egyihiin maxaa dhacayo total dhibid iyo total credit ma saameynayso waayo inta lagu qalday oo laga bixiyay haddana intaa looga soo daray marka isdamarintaas oo kale ayadoo jiro qaladkaas uu jiro haddana balansigeena wuu iskeeni karaa balansiga wuu isla egyahay waa sax balse haddii lagu laabto akoon simple oo waxaa la arkaa oo dhibid laga rabay oo credit ah qalad waa in la sax waayo akoon payable oo credit loo ogaayo laga rabay oo haddana dhibida ku arkeena qalad waa in la saxay noqonay haddana qaladkaas ma saameynin tusaale marka usoo qaadanaynaa dukaan bagaash oo kale qofka adeegana qof macmiil ah oo dalbana in sokor camal la siiyo kiilo sokor okay miisaanka waxa lagu cabiro dukaamada maxaa waaye miisaan bir ah waaye kiilaa la saaraa dhinacan kalena sokoraa lagu shubaa qofka macmiilka ahaa marka kiilada sokorta la cabiro oo intana birta kiilada ay saaran tahay intana kiilada sokor saaran tahay qofkii waxaa laga yaabaa inuu dhaho kiilo iyo rubac waxaa laga dhigo markuu saas dhaho waxay noqonee in kiiladan miisaanka ee birta ahna lagu soo kordhiyo rubac oo miisaan asi oo bir ah sokortan lagu soo kordhiyo sokor kale oo kiilo rubac laga dhigaa la rabaa ayadoo saas qofka u dalbaday haddii ka waran haddii aan sameyno sokor diyaarsan oo rubac ah intaa soo qaadno aan dhigno meesha miisaanka kiilada ahayd oo saarnay aan saarnay sidoo kale miisaan yar oo rubac ah oo bir ahna waa soo qaadnay sokortii ku dhex ridnay miisaankaas muxuu sameynaa waa isla ekaana waayo rubac iyo rubaca lagu kala biiriyay oo intana waxaa lagu daray rubac sokor oo xiran diyaarsan dhinacan kalena waxaa lagu daray bir oo rubac ah miisaanku waa isla egyahay mar waliba oo wax isla eg miisaanka la saaro labada dhinac waa isla ekaanaya ku saa'idi mar kasta waxaa ku saa'idinaysa day isla egyihiin way isla ekaanaya miisaanku waa sixnaana laakiin maxaa qaldan qaladku intuu ku jiraa qaladku wuxuu ka jiraa rubaca sokorta ah waxaa la rabay in sokorta lagu daro lagu kordhiyo birta miisaanka ee yar rubacana waxaa la rabay in birta kale ee kiilada ah lacag dhigaa la rabay qaladku wuxuu ka jiraa meesha laga rabay wixii in ay yaalaan positionki ayaa qaldan ma ahna miisaanka wuu saxan yahay qaladka noocaas camal ayaa tusaale noocaas camal ayaa usoo qaadan karna oo sidaas ayuu qaladku u jiraa ay noqon kartaa laba qaladka wuxuu ka dhici karaa in markii aan soo guurinayno xogta oo journalka soo guurinayno ledgerka aan keenayna maadaama anaga aan trail balansigeena ledgerka ayuu ku tiirsan yahay xogta kasoo qaadanayna waxaa dhici karta marka qaladku inuu ka dhacay marka journalka lagu soo guurinayo dhacdooyinka oo ledgerka lagu soo guurinayo in dhacday oo hal dhacdo ah in laba jeer lasoo guuriyo marka waxaa dhacayso qalada meeshaas ka dhacay tusaale hadda soo qaadano deen ayaa qof macmiil noo keenay akoor si bala markaas yaraanayo oo credit noqonayo sidoo kale debit cash ayaa soo galaa marka macmiil deen keenay oo tusaale $1 ah keenay haddii aan laba jeer diiwaan gelino waxaa dheeraa marka
كاشك أقوله أو معمل كسر نفسه قاله لو كنا نقارن سيد صح ده أنا بحاول هل جر هل مر أيوة قف كسر العكينة كن أيوة كان مرك قلد وحاجة جري كاشك العك وحاكوسا العكوسا إذا أجرت أو صح هين دانك كان أكو سيب الحالة ناقصية العك صح هين أو إلا ناقصية سنين قلد كسمحو السامين وإس الأكاشات تطلع بدي كده صوبته الحواي ماشي كوسائد أكونك أو واحد كوسائدي وحاول أسد لعقت قلت كوسائدي أسد وكاش أكونك أو واحد كان نسقامين سقاد واحد أو نسقامين وإسل أسد حتى لنا على نسقانك أو كذا كريد عمل أهان لنا أو سائد كان عن نبي أهان قلت كوال وقال لما دع سلم إكالين لكن صوت لو برارو حاول إسل أسد واحد كوسائدين إسل أسد لنا كل نسقامين سدح وحقلت كذا كرا إن أول سوق جورن دعذا حد محيه دعذا لو جر سوق جوريا قلت كي ما كان عاملينه waxaa kaloo jiri karto dhacdo oo aan bal soo guurin la jirka balkeen sababta markasta u dhahayni kuwaas marka ka soo hadlaysa taas markasta u dhahayni waa in la hubiyaa in dhacdooyinka la soo wada guuriyo marka dhacdo la qoraa waa in si sax loo qoro oo dhibid kale isla eegin in la hubiyaa waxa maanta waxa ugu dadaaleen waxay ahayd in dhibka camal qaladaadka hadoo dhac camal rafaad u noqonin oo had iyo koob hala laabto noqonin ayaa looga taxadiray marka waa qalad la jirka markii sameynay ka dhac ayaa saameyn karta balance qaladka hadii markasta lagu hubiyo oo wixii si fiican loo nidaamiyo waxay ku suurtagelinaysaa in laga baxsado soo laabad iyo waqti badan oo dhum hada soo koobno muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsanaa trial balance oo ku saabsanaa waxa soo aragnay trial balance muxuu yahay qaabkee loo diyaariyaa muxuu muhiim u yahay oo in la diyaariyo oo noqoto muhiim waxa soo aragnay in uu yahay miisaan lagu ogaado in xisaabteena saxan tahay intaan ayuu ka yahay muuqaalkeena maanta ilaa inta fiidiyoga daawanaysid aad iyo aad ay ugu mahadsantahay waqtigaada hadaa wax ka faa'iiday like saar haddii aan wax qaldo wixii aan qalday hala iga saxo inta aan saxay allah ayaa waafajiyey alxamdulilah dambeena aan ku salin nabigeena allahuma salli wa sallim wa baarik calaa nabiyina maxamed